بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما إسنينه أفر يطبنك بشا جولاي سنة لبكن لباتن يشن أو كوبهن سجال يطبنك بشا محرم سنة كن أفر بقول فرتن يتضبا تاريخ ذي هجريد كسو دوادا مركله يبرامجكي xulashada wararka qodobada aan idinkugu haynana waxa ka mid ah waa Israa'iil oo Mareykanka uga digtay in Turkiga laga iibiyo diyaaradaha dagaalka casriga ah ee F-35 iyadoo cabsi ka qabta Erdogan in uu soo celiyo awoodii khilaafadii Cismaaniyiinta qatarna ay ku noqon karto diyaaraddaasi amniga Israa'iil wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa Abu Ubayda oo xalay soo saaray fariin xasaasi ah oo ku aadan dagaalkan imika socda in ka badan 20 bilood haddaba maxay yihiin waxyaabaha uu sheegay faahfaahin baan idinkaga haynaa Kuuriyada Waqooyi oo dignin u dirtay Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan kuwaasi oo dhawaan sameeyay dhoolatus military Mareykanka ayaa ka dalbaday Japan iyo Australia inay caddiyaan mowqifkooda wax u qorsheysan haddii dagaal uu la galo Shiinaha Trump oo la filayo maanta inuu ku dhawaaqo go'aamo culus oo ka dhana dalka Ruushka dhammaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaan hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada markala daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir ana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa xiisada gacanka Kuuriya ka aloonsan si aad kula socoteen wararkaygii ugu dambeeyay wadamada Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa sameeyay dhoolatus military arrintaasi oo si weyn uga caraysiisay xukuumadda uu hogaamiyo Kim Jong-un haddaba aynu eegno warar ay tabisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA iyadoo xiisadan cirka isku shareeriso ayaa Kuuriyada Waqooyi waxay ku bixisay dignin aad u culus in Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay uga jawaabi doonto waxa ay wadaan oo ay ku tilmaamtay faduul tilaabo military waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo dhoolatuskaasi ay ka qayb qaadatay diyaaradda nooca duqeymaha istiraatiijiga fulisaha oo Mareykanka uu leeyahay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu sheegay in si buuxda ciidankoodu ay diyaar ugu yihiin inay qaadaan tilaabo military oo toos ah haddii qatar dhaba ay ku timaado Kuuriyada Waqooyi ama ay uga timaadoba isbahaysigaasi dhoolatuska military ayaa waxaa ka qayb qaadatay diyaaradda B252 waa diyaaradda B52 oo Mareykanku uu leeyahay taasi oo awood u leh inay xambaarto hubka nuclearka iyadoo ay weheliyaan diyaarado dagaal ah oo ay leeyihiin Japan iyo Kuuriyada Koonfureed waxaana ujeedada laga lahaa ay tahay in la muujiyo awoodda cabsi gelinta ee iskaashiga saddexda dal Pyongyang ayaa ku tilmaamtay dhoolatuskaasi mid gardarro ah oo lagu cadaadinayo iyada waxaana ay sheegtay in isbahaysiga military ee Mareykanku horkacaya uu yahay mid si toosa qatar ugu ah amniga Kuuriyada Waqooyi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa lagu yiri waxaan diyaar u nahay inaynu qaadino tilaabo ciidan oo toos ah si aan uga hortagno fal kasta oo lagu carqaladeynayo madax bannaanideeda Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale sheegtay inay awood ciidan oo xooggan ay tahay isla markaasna habka kaliya ee lagu hortagi karo duulaankaasi suurtagalka ee Mareykanka iyo xulafadiisa ay tahay mid u baahan in wadajir loo wajaho digniinta Pyongyang ayaa u muuqata mid sii kicin karta xiisadda gobolka waxaana la sheegayaa in xaaladdu ay tahay mid cirka ku shareeran hagaag dhinaca kale xiisadda ka aloosan Shiinaha iyo Taiwan ama ka dhex aloosan ayaa
iyadoona xoogaysanaysa sanadihii lasoo dhaafay maraykanka ayaa haddaba waxaa la sheegayaa inuu weydiistay wadamada Japan iyo Australia inay caddeeyaan mowqifkooda wax u qorshaysan haddii dagaal uu dhex maro maraykanka iyo Shiinaha warbixin amurahan ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxye Ciise waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ayaa ku cadaadinaysa dalalka Japan iyo Australia inay qeexaan doorka ay ka qaadan doonaan haddii Mareykanku uu dagaal la galo Shiinaha gaar ahaan xiisadda la xiriirta Taiwan sida uu qoray wargeyska Financial Times ee ka soo baxay magaalada London. wargeyska ayaa soo xigtay ilo xogogaal u ah wadahadallo arrimahan ku aadan isagoo sheegay in ku-xigeenka xogayaha difaaca Mareykanka ee dhinaca siyaasadda Elbridge Colby oo arintan si xoogan u dhexgeliyay kulankii dhawaan dhexmaray saraakiil difaac oo ka kala socday Japan iyo Australia. wargeysku waxa uu sheegay in Tokyo iyo Canberra ay la yaabeen dalabka Washington maadaama Mareykanka laftirkiisu uusan bixin damaanad buuxda oo ku saabsan inuu difaaci doono Taiwan haddii Shiinuhu uu weeraro. Colby ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada waxa uu ku sheegay waaxda difaaca ee Mareykanka inay diiradda saarayso hirgelinta barnaamijka Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh taas oo ah barnaamijka madaxweyne Donald Trump kaas oo uu ku sifeeyay waa sida uu hadalka u dhigay mid xaqiiqada ku saleysan oo loogu talagalay in dib loogu soo celiyo awoodda cabsigelinta iyo in nabadda lagu helo xoog. waxa uu intaas ku daray in barnaamijkan uu kamid yahay ku dhiirigelinta xulafada inay kordhiyaan qarashaadka difaaca iyo dadaalada kale ee la xiriira difaaca wadajirka ah. inkastoo aysan jirin xiriir diblomaasi ah oo rasmi ah u dhaxeeya Taiwan iyo Mareykanka haddana Mareykanku waa bixiyaha ugu weyn ee hubka Taiwan ayaa wajahaysa cadaadis ciidan oo soo taraya oo ka imaanaya Shiinaha kaas oo dhowr jeer qaban qaabiyay dowlad tusi ciidan oo ballaaran oo hareeraha Taiwan ah iyadoo Beijing ay doonayso inay xoojiso ama xaqiijiso sheegashada ah in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda. Taiwan waxa ay si cad u diiday sheegashada Shiinaha ee ku saabsan inay tahay gobol ka mid ah dalkaasi. Colby waxa uu horey u ahaa ku-xigeenka xogayaha difaaca ee Mareykanka ee qorsheynta iyo horumarinta awoodda ciidamada intii lagu jiray madaxweynaadkii hore ee madaxweyne Donald Trump. Trump ayaa si joogto ah u difaacay in la hormariyo awoodda militariga Mareykanka si uu la tartamo Shiinaha iyada oo diiradda laga qaadayo bariga dhexe iyo Yurub. Yaxye Ciise, HBN Online TV. وهجاج يحيى aad buu mahadsan yahay maanta oo Isniina madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo arrimo waaweyn oo la xiriira dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxaana loo badinayaa inuu qaado tillaabooyin lid ku ah Ruushka inkastoo ilaa hadda aan la ogeyn wax uu qorshaysan haddana waxa bidhaamiyay suurtagalnimada tillaabooyinka uu qaadi doono madaxweyne Donald Trump xildhibaanka lagu magacaabo Lindsey Graham oo ka tirsan aqalka sanadka ee waddankaasi Mareykanka haddaba aynu eegno warbixin telefishinka CBS uu tabiyay Senator Lindsey Graham oo ka mid ah xubnaha aqalka sanadka oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa waraysi uu siiyay telefishinka CBS waxa uu xalay ku sheegay in la maqli doono maanta oo Isniina go'aamo waaweyn oo ka dhana Ruushka Trumpna uu ku dhawaaqi doono. Graham ayaa yiri xaaladda ku saabsan duulaanka Putin ee Ukraine waa isbedeli doonaa waxaana filaynaa buu yiri in maalmaha soo socda aad arki doontaan hub tira badan oo loo diray Ukraine si ay isku difaacdo isagoo arrimahan ka hadlaya waxa uu yiri waxaan filayaa in maalmaha soo socda ay jiri doonto cunaqabatayn iyo canshuuro dheeraad ah oo Trump ku soo rogi doono Ruushka. Lindsey Graham oo hadalkiisa si ambaqaadaya ayaa waxa uu yiri waxaan sidoo kale filaynaa in maalmaha soo socda ay jiri doonto taageero dheeraad ah oo ka timaada dalalka Yurub taasi oo la siinayay Ukraine. wuxuu sheegay Putin in uu sameeyay xisaab qaldan oo sidalka u dhigay isla markaasna muddo 6 bilood Trump isku dayay inuu Putin keeno miiska wada hadalka laakiin weeraradu way si kordheen buu yiri halkii ay ka yaraan lahaayeen. mid ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee Putin uu sameeyay waa inuu isku dayay buu yiri inuu la ciyaaro madaxweyne Trump. hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo la filayo madaxweyne Trump in maanta uu ku dhawaaqo go'aamo aad u culus. aynu arki doonaa go'aamadaasi iyo wixii ku soo kordha oo dhageystayaasha iyo daawadayaasha HBN ayaa ugu horeyn doona dadkii macluumaadkaasi hela. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. Israa'iil oo Mareykanka uga digtay Turkiga in laga iibiyo diyaaradda casriga ah ee F-35
iyo hadallo adag oo xalay uu jeediyey Abu Cubayda. Intaan u gudbin wararkaasi aynu ku hakanno qadar xayisiina. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda. ku soo dhawow Qari Online. Qari Online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta, taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin. macallimiintu waa khuburo, macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrad ah. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay, iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo Qari Online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada Qari Online, la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada ka soo dhawaada markala daawadayaal. wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, facalooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnam HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. hagaag intaan idin soo gudbin wararkii ugu dambeeyay ee Gaza aynu eegno xalay hadal adag oo u jeediyey Abu Cubayda, afyeenka Al-Qassam, garabka hubaysan ee ururka Xamaas. waxaana uu ka hadlay dagaalkan imika in ka badan 22 bilood socda. haddaba aynu eegno warbixin telefishinka Al Jazeera uu sii daayay. Abu Cubayda ayaa waxa uu sheegay duulaankii duufaanta Al-Aqsa in uu sababay in si buuxda loo burburiyo awooddii cabsigelinta Israa'iil. Abu Cubayda ayaa hadalkiisa ku bilaabay in sanada uu ka soo wareegay geeridii Maxamed Daciif oo horkacayay duulaankii duufaanta Al-Aqsa oo uu tilmaamay inuu ahaa weerarkii dhaliyay dharbaaxadii ugu cuslayd ee taariikhda Israa'iil soo marta. Abu Cubayda waxaa sidoo kale uu tilmaamay in howlgalkaasi uu keenay in mar kale arrinta Falastiin dib u soo laabato, isla markaasna ay timaado masraxa hore ee caalamiga ah. waxa uu sheegay in 10 sano halgan silic iyo nafhurinimo ah ugu dambeyntii ay soo gabagaboobeen taariikhdii hogaamiyihii weynaa oo ula jeedo Maxamed Daciif. waxaana uu tilmaamay in uu hormuud u ahaa hawl adag oo weyn oo u hayay ummadda, wuxuuna ku biiray buu yiri halyeyada geeriyooday. Abu Cubayda waxaa kale oo uu sheegay in hogaamiyahan Maxamed Daciif uu sanado badan dhiirigelin u ahaa jiilalka soo socda, laakiin sawirkiisa aan la arkin. waxaana ku faani jiray buu yiri guulihiisa uu keenay, guutada uu ku guuleystay in uu heerkan gaarsiiyo, isagoo ula jeeda Al-Qassam. waxaa sidoo kale uu sheegay in walaalaha kale iyo ubadkuba intuba ay yihiin kuwa ku socda dariiqa, isagoo tilmaamaya intaasina ay tahay in dadka Falastiiniyiinta ay ku noolaadaan farxad iyo xorriyad. dhinaca kale waxaa la sheegayaa Rafax iyo Khan Yunisba in ciidamada Israa'iil duqeymo ay ka wadaan. waxaana lagu soo horamayaa in Israa'iil ay ka go'an tahay Beyt Xanuun goobta la yiraahdo oo dagaaladii ugu dambeeyay si xun Israa'iil loogu galay, inay doonayso inta wada hadallada ay socdaan inay gebi ahaanba la wareegto aaggaasi, isla markaasna ay burburiso. waa hagaag markan waxaynu eegaynaa warbixinta la xiriirta Israa'iil uga digaysa Turkiga in laga iibiyo diyaaradaha F-35 Mareykanka. aynu eegno warbixin amurahan ku aadan oo saacadii ugu dambeeyay wax laga qoray. Israa'iil ayaa Mareykanka si cad waxay ugu sheegtay in ay ka soo horjeedo, isla markaasna ay uga digayso in Turkiga loo ogolaado in laga iibiyo diyaaradaha dagaalka casriga ah ee F-35, iyadoo laga cabsi qabo in Ankara ay u adeegsato qatar gelinta amniga Israa'iil, sida uu qoray wargeyska Maarif. sarkaal sare oo Israa'iili ah ayaa sheegay in ay jirto suurtagalnimada iska horimaad ciidan oo lala gala Turkiga, taasi oo ku tilmaamay mid
markaasi fog laakiin isa soo taraysa. Israa'iil waxay ka baqaysaa in madaxweyne Erdogan uu isku dayo inuu ballaariyo saamaynta Turkiga ee gobolka, isagoo markaasi Israa'iil ay leedahay wuxuu doonayaa inuu dib u soo celiyo dhaxalkii khilaafadii Cismaaniyiinta oo ay ku jirto magaalada Qudus. Tel Aviv ayaa u aragta hadallada Erdogan inay halis ku yihiin danaha amniga Israa'iil, waxayna cadaadis ku saaraysaa Washington inaysan fasaxin wax hub casri ah oo lagu kordhiyo awoodda Ankara. Dhinaca kale, Maraykanka ayaa wada heshiis ballaaran oo lala gelayo Turkiga, kaasi oo ku saabsan in laga iibiyo cutub ka mid ah, waa 2 cutub oo ah diyaaradaha F-16. labada cutubna waxay ka kooban yihiin min 35, taasi oo ah 70 diyaaradood. diyaaradahan ayaa ku ugu dambeeyay casriga, waxaana ay ku qalabaysan yihiin raadaarka loo yaqaano AESA ama nidaamyada casriga oo loogu talagalay hawada inay muddo dheer ku jiri karaan. Turkiga ayaa waxaa laga saaray iibinta barnaamijka diyaaradaha F-35 sanadkii 2019 kadib markii uu iibsaday nidaamka difaaca Ruushka ee S-400, taasi oo keentay in Washington xayiraad ay ku soo rogto qorshihii lagaga iibin lahaa Turkiga diyaaradaha F-35. tan iyo xilligaasi Ankara waxay raadinaysay siyaabo ay uga bedelato ama uga laabato awood hubeed oo markaasi ay ku kordhiso awoodeeda. xaqiiqda hadda jirta waxa weeye Israa'iil inay tahay cidda kaliya ee gobolka bariga dhexe ka haysata diyaaradaha F-35. Imaaraadka Carabta ayaa heshiis horey ula galay Trump muddaxileedkiisii koowaad, laakiin uma suurtagelin inay iibsadaan diyaaradaha F-35. sidoo kale Qatar ayaa iyaduna ilaa hadda waxa ay dalbanaysaa diyaaradahaasi in laga iibiyo, laakiin iyadoo xiisadda Ankara iyo Tel Aviv u dhaxaysa ay soo tarayso imikana banaanka ay timid loolanka awoodda iyo saamaynta gobolkan la isku hayo. Maraykanku wuxuu wajahayaa cadaadis laba dhinac ah. Waa Israa'iil oo diidan in diyaaradahan laga iibiyo Turkiga, iyo Turkiga oo hadda madaxweynahooda Erdogan ay isku fiican yihiin madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, isla markaasna la sheegay in uu ka fakarayo madaxweyne Trump sidii diyaaradahan casriga ah ee F-35 looga iibin lahaa Turkiga. arrintaasi oo la sheegayo in Israa'iil ay u aragto qatar aad u ballaaran. waa tahay waynu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaasi. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waana ku mahadsantihiin mar kale daawashada barnaamijka. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa, nabadgelyo. ku soo dhowow shirkadda dhismaha casriga ah ee Golden Country Apartments. daaxaadda waaftoo dibadaha maraysay hadda soo deg meeshii dalxiis ku ahaan lay qalbiguna ku degila daartaas ifayso dadku wada jeclaadeen mar docdaada ka carbuuno. shirkadda dhismaha guryaha ee Golden Country Apartments waxa ay Nairobi kugu diyaarisay dhismo casri ah oo hadda shaqada lagu wado, kaasoo ka kooban dhammaan adeegyada xaafad casri ah looga baahnaa. lacagta 24 bilood ayaad ku bixin kartaa haddii aad doonto. waa 2 qol, 3 qol iyo 4 qol iyo qolka shaqaalaha, waxaana uu ku yaalaa xaafadda South Sea, wadada Mohoho Avenue. kala xiriir ciwaanada iyo adreeska kale ee shaashada kaaga muuqda. dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shareecada Islaamka qaybaheeda kala duwan, waxaa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibnu Cabbaas uu soo kordhiyey qayb cusub oo online ah. waxaana ka mid ah culuumta shareecada oo ilaa 6 qaybooda: barashada af Soomaaliga iyo Carabiga, Quraanka Kariimka, dadka waaweyn iyo carruurtaba, kasixidda carabka ruuxa dhigtay hadda ka hor, higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah, iyo culuumta kale ee Quraanka. wixii faahfaahin oo dheer waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda. ku soo dhowow Safari Remit, warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku warramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan,
tanzaniya iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safaririmit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit